gobolka dadka ku nool waa dad wanaagsan waxay u baahan yihiin hoggaan maxkamada gobolka dadka jooga waxay u baahan yihiin hoggaan hogaamiya ama degmaha joogo ama gobol ha joogo ama meel ha joogo ama ciidan ha joogo dad wanaagsan hoggaan wanaagsan maamul yaqaan haduu helo dad waa dad wanaagsan hadii sheegaya kale saakan ku sheegaya inta horteeda salaadiintoodii oo dhan iyo boqoradoodii waa wada fadhiyay cuqaash iyo maamuladii iyo guddiga nabadgelyada idinka maqan gobolku waa nabad saacada maanta waxa bad soo haystaa ma jirto wax bilow dhaxtaa la ma jirto arrin yar oo ceeldibar ku xidhan iyadana hadeer ka hadlaynaan iyo mees umba xoga meel loogu xidhan wuxuu ka kooyay gobolku 12 degmo 12 ka degmo saddex degmo weeyo waxa kale waa dhii maamulada joogan waxa soo magacaaba wasaaradda arrimaha gudaha hergaabo elfway iyo garadag waxay ku yimaadaan doorasho isduwayaashu waxay leeyihiin 12 isduwa jooga xafiiskooda xafiis lahayn waxaanu nilaahaa garab raro waa magac turkuqaad baliga guurta ku sitaan xafiis suuqay fadhiyaan kabka markii inta yar u taada miisaaniyad bay bagiga iyo canadigana waxay kugu keeni doonaan saxeex qaabkood waxa laga yaabaa iska aadaan xamar wasiiradoodan kala hadlay wasaaradda daaqiliga kala hadlay cid kasta waa kala hadlay waa bilaa xafiisti garasaasay ogaanaysaa gaadiid male intooda badan aan marnay shaq wasaaraddu ama lix baa haysta male wax gaadiid gobolkana waxa yaala kayga guddiga nabadgelyada waxay ka koobayeen taliyaha qaybta taliyaha sugidda taliyaha nabad sugidda taliyaha ciidanka militariga iyo meerka magaalada wada shaqeyn fiican baanu leenahay waan isku nafiyo nolol baan naga dhaxaysa adigana waxa idinka rajaynaa sida ay shaqeynteen inaa wala shaqeysaan isaga wixii magaalada gudaheeda kaaga xidmo ninkana u diiwaanaan kan fadhiga gaaban fadla ay fadhiisanaysa si uu dhigtay wixii kale ka soo waada waxa halka fadhiya waa awqaad hadaa mushahasiya fadlan fadhiga garaway si fiican baan u wada shaqeynay ilaa gaadii la isku soo gaaro dadweynaha waxay noqon doontaa lama yaqaan fadlan iska bishaarka halkan waxay naga dhow gobollo kale oo badan oo gobolka ka tirsan haddana gobolka aan ahayn oo badan saabkiisa imaamkii laakiin ogow adun baa wax walba ku soo maraya halkaana maarmaya xalkeedii taladeedana aduu ku yaala وقاسنا هذا مشاهد يعد مشاهد قاطع إذا مرة تاسيدنا واسدا وحيالها عن قبلني وحاول بدنام يقول إذا لقى قبطي أما هرمار المسارحة اسكم مغندونا وديل جوتا لو سلقوا عن سميني تقومي كلا ساعة ويفلي درر ويني يلا دوري صوت من سكول بوزارة التعليم تدرس سنة كام حبيبي ما يقول شيء تقمله حفيزك كان هو لسيه ألف وين لسيه أن كيكو والقوة كان يمكن فرينا هذه هذا كده ماشي يجلبك تقريبا هو لسنتاي كيكو راك واديان هذا أنا واحد عن تقايا خلاص الدولة دوسين الديار يسافرون كي اللي فدي يشتري بكينسا لأنه واحد كده سيسبع ليال سيدا برضه أنت جوي موجود كو والقوة داخل بيسوق كي بدأ وزارة المالية ده وبعدين وزارة البيرة سألت كلامك الله شغل كعنت كوهاي يدك يا جدع واحد ست عدو وجبر كسرة سوق كعبنا يعني إرتي والله وفوق يدك مثل الشروح مثل التيرتو أوكي بتشرب يميل لبوم هي قيمتي يعني هي راهي بدي يسدوي عندك كم كينا جبر كنا وصل درا وكم بحا وعيجلين واحد كلو كم بحمد حاجة كي والله مرة يقرونتي يجير كي كلو مرحلة أمان markii maydii laga tigmo ergaawa gobolka sanaag hadaan nahay waan idin maqana waadii maqantii horumar baynu isku ognahay daacadnimo baynu isku ognahay wada shaqayn baynu isku ognahay xiriir joogta wadishii ayna gaaya intaasaan ku soo xidhay hadalka oo iga xidhan yahay waxaan ku soo dhaweynayaa rasaabkii cusbaa axmed maxamuud عبد الله حسين درويش شبكة عالمية أود وين نيوز مقالة عاري قابو